عرتقال محمد عرتقالب وابهينا وها عمر عرتقالب ودلكي مسقو دنبيلا marka ma la jiifiyaan barnaamij la soo joojiyaan barnaamij horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabada daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo madal kale iyo maalin kale iyo barnaamijkeennii heelka bulshada maanta waxaan idin haynaa barnaamijkii qayb kale oo aada uga sii xiisa badan qaybihii hore usbuucii hore waa in badan aada soo codsateen maansoo la magac baxday xilqaade maantana waxaa noogu macsuuma abwaan ismaaciil qorshe abwaan ismaaciil qorshe marka hore kusoo dhawow noo saaxiib adiga iyo salaam daawadayaasha halkan nagala socotaan waxa weeyaan socota TV iyo anigoo Shucayb Mataane Nuuriya ama sadii taqaan Shucayb Nuuri abwaane gabaygan maasadan xilli maad cursay maxay si ku socotaa marka hore maasadan hadan wala jir way sanadii 2018 hay bayn samay way laakiin caawa waxay intii hore u dheertaa waa daawar bari hore dhageysi iyo qoraallo mid ku soo gudbisay waana sababta ay daawadayaashaada iyo dadka ku xidhan ay soo dalbaday maasadan waxa la yiraahdaa xilqaade waxay la hadlaysaa qof kastoo mas'uul xil haya siba madaxweynayaasha inta badan Soomaalida intooda way ku socotaa waxayna u hadlaysaa shacabka waa hil shacab waa wacda marka sida runtii waxa weeyaan xeerar badan oo iska leenahay baa jira Soomaalihaan oo la yiraahdo la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan marka gabayga ayaan midhiisa iyo xigmadii xikaayadiisa aad ka dhadhasan doontaan abwaane xilqaade marka laga imaado mawduuca xilqaade aad kaga abaariso xil bulsho fara badan haya sida runtii aan mar hore gabaygaagana hore daawaday u dhageystay waxa ku jirtay in qofna lagu shaambadeeyo xamar for example dalkeena Soomaaliland la yiraahdo xamar waxa weeye qofka taga waxa weeye waa qarandumis qofna hadhow la yiraahdo kii tagayna qaarkoodna la yiraahdo dami ma laha sida isbuucyadii imika in soo dhaafay oo kale la hadal hayay maalmihii dhaweeto in Artaqal Maxamed Artaqalib waabihina oo ha Umar Artaqalib uu dalkii isagoo dambiila marka ma la jiifiyaan barnaamij la soo joojiyaan barnaamij horta maasadani saan hore u sheegay xilqaade waxa inta badan dhacda xorriyadan way ka hadlaysaa xorriyadii marka inta badan waxa dhacda xeerkii qawaaniintii xeerkii lagu tumanayo la jiifiyaan la banaan la joojiyaan banaan ayay magaranaysaa daarantay kelmadan horta aynu si sheeko ku xasuustaa waa runay cilmigan koodhan la jiifiyaan banaan la joojiyaan banaan waxa shifa nin de sheekh sheegay jiray sheekh moohayn waa runay xilqaadan buu ahaa ayaa la yiri ayaa dad wuxuu sameyn jiray cunto raashin ayuu qiimin jiray dadna raashinkii uu markaa soo saaray in raashinka lagu cabro ushaas oo oranaya jiifiya ma jiifiye uu ku shubaya intii dusha sare ka fuusha ayuunba ayaa deedahay baa la oranay birigi dambe wuxuu keenay markii si soo gaadhay isaga loo miisaha ayuu taagay baashi uu taagan oo saasa dawaa ilaa yaa la maqan adoo dushun baa laga shubo wareegaas oo markuu buuxsamay bilaana iska marka xeerkii hadda istan ku socdo markuu ninka xilkii fuulo la joofiyana la baana joofiyana banana hatta xamarta markuu inuu eego wixii shalay la qaraana ka dhaxgalada halka ku wata wixii shalay la qaraana ayaa maanta la macaan tuushayda oo ina samatar iyo badan oo hatta geeridii Allah yarxam raxmana maxamed baashe barnaamijkiisa loo diiday maadaama fikir kale uu qaatay oo mar labaad iyo midnimo Allah naxariisto ayaa loo diiday maanta waxa loo ogolaaday Maxamed Umar Artaqalib waa bihiino Hargeysa jooga marka horeba yaan meel ku soo dalbaday baan la garanaynin afis soo criminalka qorna dadka waa la jiifiyana banaan la joojiyana محمد عمر كريم ماهي ملايين كلو حلايا إلى يكون ذكراس كفرديا أيام ماشي دتك يقول ديديا هذا محمد كريم وملك استيقظ بلاك شيء أيوة هذا مرة نسا إنك إنه وينو ديديا يجي نو تجي ما كحير كني وحوي قفك وحلي نوايا أياد عياليني وسويت كليني وحلي عرب وقبة وهذا اللي لما عنان تانكي بعنا قوي مركزي بيسوق عنك شو عيالكي بقى يدي بعد ما عرفت هالجدول دي واحد نقطة شكل لما عرفت إنه بعانة تاني حتى ما كي حرك جارو ميرا يبدي دي يعني ما كجارو حمر ولا كيس كله ولا حمر بتكون يدي ولا وحبة عائلي مش تانيس ما مدي دوني لدوني يعني حمر باتتي ولا حلو فايدة كسر قصور كسر لقى محمد عمر كل يوم تنام يجي دواس عدانتي
waa la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan waxa aad diidaysa waxaanu leenahay ayaad maanta waxaanu leenahay ka daaya la joojiyaana bannaanta la jiifiyaa bannaanta gabaygan xilqaade xigmad iyo xikaayad fara badan baa ku duugan wax badan buu fasili doonaa abwaane muxuu ni odhanaya markaa kale wuxuu inay leedahay wada daarmaya waa dardaaranka ugu dambeeyay wuxuu leeyahay ma og tahay xilqaadow yaa xadhig baan dad celin karin maatadani dadkani xadhigii waxaas ma celin karaa hadda ma garanaysaa ma og tahay xanqaadow xadhig baan dad celin karin xin siyaasadeed iyo xamar buu la jiray iyo waa xulufo kale iyo xayiraad la saariyo magac lagu xariiqiyo magac yar un baa lagu raadinayaa halkaasaad beri washaamada yare berigii dalbasana ka horna gabaygan uu jiray washaamada yareeda wadani la iskaga dhejiyay maanta dad badan baa lagu dhejiyay wadani kale ma ummadoo dhan bay qaaday ummadoo dhan waa rahay xisbigaasna waa jiray laakiin dee waa qofkii la doonayo waa kii la raba shaamada dad badan qabanayno waay magac lagu xariiqiyo xumo loo sameeyo xajiin lagu nabnabo iyo ummadan ka xoog badan ka xadaarad dheer abid mar waxaad la malmalaha la qarqarinaya waxaan oo dhan ka dabataagta kaaladu miyuu hadarawira saalada ha qarisay caraday ku saydhiyo sigadu ma qarisa war waxaan la walwalaaqay dad way arkaa waxaa sakaara u boobo diraawi allah aday ya ummadani ka xoog badan ka xadaarad dheer abid xoru dhalad dad weeyaan xaashi iyo gob weeyaan xarfahaasi qaban karin aadna taa xasuusno taana xasuusno iyo dee nin kasta oo iyo qof kastoo xil hayaba inkastoo dee waqtigan ismaaciilkiisa iyo dee garanaysaa iyo dee cid kastoo garanaysaa waxaa soo meesha weyn adoo garanaysaa ma og tahay xilqaado mar labaad xukumu hogaanshow dad ummadani xaq baa dhaqa ummadaha xaq baa dhaqa oo xaq sooridaa dhaqa xornimo iyo sinaan iyo xubno wada jiraa dhaqa dad unisnaadaan haddii uu xigaal yahay ama xidid hadduu yahay ama qolo xulufo ah ama xeer wadaag kale ama xaafadaha kale ama uu xaq sooridaa dhaqa inaad kala xigtaysana maxaa kuwa kaxaa war ummadda ama sokeeye ha noqdo ama xidid ha noqdo ama saaxiibka ha noqdo ama mid weyn oo xoog weyn mar hadda xilqaaday dadkani waxay rabaan dee loo xoqs qoyskaagii dee ma garanaysa sheeri meeri la saaxiibkaadii afartii reeda isku xaafadaada waxayna haystay hay iyo kooxdii adiga ku jirta waay inta badan way iska jirtaa oo dadkii ma garanaysa qaybina waa xuluufo iyo xun asxaab qaara shaambadu way qabanaysa qaarna ma qabanayso marka ka daayeen le marka inta beriga u dhow baa xisaabtan qorataa waxaan ninka siyaasiga ah inta badan hadii ku agdhow isugu dii taageersan yahay ayuun baynu leenahay dee yay ma garanaysaa intaasi ceebka saliim noqonay loo sinaado ma og tahay xilqaadow xukumo hogaanshow ugu celinaynaa xornimada u dirirkii dil wixii xasuuq dhacay ama curad xabaal galay wixii xoola naga lumay la xansuuqay maatada xukumii markaa jiray isba xaramka muu gubin dadku kala xigtaystiyo wuxuu nacay xorriyaddii wuxuu diiday xaajigu xaaladihii markaa jiray in xaqiiq la taabtiyo xogta sheegisteedii adna taas xasuusnow ha ku dhicin xorfadihii lagu riday xukumo hore ha ku dhicin xorfadihii xukuumihii hore lagu riday watanimika jirta maya dee nin kastoo dictator la yimaada hog xorfadunba ku dhaca taas baanu ka bixin ama se xaqdoor ama se xaqsuurkiisa aanu shaqaynin isagunbaa xadhigii qabtaa marka war xaqsoor iyo sinaan iyo dadka inay sinaadaan ayaa la doonaya mid sare iyo mid hoose mid kale dadku waa xariir guba waa xaruuri sama jecel waa duul nin xoogiyo xukun caga jugloyiyo ka xanaaqi kalitays waa qolo xoog badan xinjirana u qubi karaa xoolana u huri karaa nin xaqoodii duutiyey adna taas xasuusnow adna taas xasuusnow tii shalay dhacday taasay haydo waxay tiraahdaa waxaanu nala soo dagaalameen waxaana
kii ugu awoodda weynaa dee dadkii beriga kii ugu awoodda badnaa la dagaalamay markastana waa la dagaalamay abwaane adigoo hadalka kusii wata waa maxay waxaan siyaasigu shalay toole mabda-an iyo waxaanu dadka ka dhaadhicinaya qiirada ahaa oo odhanaya saasaa jirta maalintu kursiga ku fadhiistana isagu waxaan oo dhan ilaahu sheegaya aanay ugu muuqanin ou dhex dabaalanayaba bahashi for example cadaalad buu ka talinayay war cadaaladda war sinaanta war qaranka iyo xuquuqdiisa war dastuurka la ilaadu leeyahay markuu kursiga ku fadhiistana gebigiisi wuxuu kusoo koobiyay qoyskiisii xeerkiina maxay tahay waa kanoo duu ku tumanaya dastuurkiiba waa maxay markaa sababahaas ku kalifaya runtii waxaynu odhan karnaa inta badan shacabka ayaa wax toosiya ama dee boontiga sheega ama qalin hawsha ama qor hawsha marka qofka haddaan dee aanu meel uu ka baqanaya ama ka gabanaya jirin wuxuu iska tarxigaya marka runtii shacabkaynu leenahay war qabyaalada iska daaya haddii allaba ku run yahay iska daaya cadaalad-xumada iska daaya imtixaankan iska daaya kala jeclayskan iska daaya mid ahaa su-aal kale waxay odhanaysaa maadaama gobogaaga dee wax badan taabanayo oo xuquuqdii ka sheekeynayo qaran muwaadinimada waxayn xaqa u lahay waxaa jira siyaasiyiin fara badan oo aynan halkan 1 iyo 2 kusoo odhan karin oo qarannimada iyo xeerkii iyo dastuurkii la dhigtayba u bedelay imika xeer bili-aadanimo marka xeer bili-aadanimadana xeer jajabkan marba dhinac yar kitaab la isku eegayo marka kalena xeerka uu qabanayo dad gaara marka xeerarkan maxaad markaa leedahay waa isla tiyuuna waxaynu leenahay ummadaha xaq baa dhaca ummadaha xaq baa dhaca abwaanku wuu fara badan yahay barnaamijyo fara badan baan rabnaa ka gungaari mayno waa nin haan fara badan iyo bad fara badan si aynu la gelayo marka wax badan baynu insha allah ka duubi doonaa intii ilaahay inooga qadiro midhaada ugu dambeysay gabagabada waxaan leeyahay saxabayaal daawanaysa haddii fahmi noqoto hadday faransi noqoto aad baan idin salaam waa mahadsantihiin daawashadiina aynu wada socono insha allah bismillaah barnaamijkan waxaa la yidhahdaa heel ka shacabka had iyo jeerna abwaanada iyo hal abuurada iyo dadka had iyo jeer dee hibada u leh midhaha ayaa lagu macsuubaa abwaano badan oo kale oo aan isaga keliya hayna waan kusoo macsuubi doonaa fadlan channelkan subscribe saar la socona week kastaba barnaamij aada ku xiisa geliya annagoo isku duwan anigoo magacayga yahay Shucayb Mataan Nuuri ama Shucayb Nuuri sidii taqaana iyo abwaan qorshe waxaynu naga tegaynaa war salaamu calaykum xaq baa wada dhaqa ummadaha xaq baa wada dhaqa assalaamu calaykum waraxmatullahi sidahay oo dhaqankii hawlaa dhulkayga laysaaray hibade sidahay oo dhaqankii hawlaa dhulkayga laysaaray hibade xil huwaday hadiya jeer hor socod u baahane